سائل كان وحولي هاي وقف رجعة حاسكي جاء يعني اسخلافني ووحنا نحبري دوت كسابسن يفر مورانكي مركي وبتي وحن كده هاي أنيجا أديجا ما بكو قبو وحن قباء أبها وجيت كي وحوها وحن آدو احترامي يا جبدا أبهد يدنا واسقف جنايي ووحن كودي هداد فرين ربتي أنيجا أبها مركو فر ده أيان كفر يا أرنتي والد كأي جارتي جبدا أبهد وحو يقول هاي ويكافران تهاي جبداس هل دلقاينا كاغا فران تهاي هذا الكاس أوجيس مركا شيخ وحن ويدينيا جبداس هذا الكاس أوجيس ما إيجا فرمتي طلاقة أما فرينك وحلو قيبيا الله بقيبود طلاق صريحة هي طلاق كناية طلاق صريحة أو فرينك عادية أو قفك مثلا حاسكيس إنه كويل هذا واقف فريو كلا مثلا وصريح وعضة kaasoo kale ma niyeysatay iyo ma ka go'oneed midna la weydiimayo talaaq waa dhacaya talaaqna waa kinaaya bimaana waa sarbeeb waa alfaado kale u adeegsana mesela inuu gabadha yiraahdo orod reerkiina aad oo gurigiina aad waxa la gurigiina aad maxaa ka wada haduu yiraahdo furiinaan ka waday haduu yiraahdo way furmaysaa haduu yiraahdo gurigiina aad ana ka daba imaan doono oo xalki reerkiina iyo qoyskiina iyo gurigiina lagu gali doonaa ka wada haduu yiraahdana ka furmayso طلاق marka duusan sariix ahayn niyada qofka loo fiiriya iyo ujeedadiisa waxa ay tahay ninkan hadda markuu yiri marka xaas adiga kuma qabo aabaha baan qaba inkastoo lafdigaasi lafdi fiican uu san ahayn in la adeegsado laakiin haduu sidaa yiri ujeedkiisuna uu ahaa aabaha baa maaragtay iga kaafuri kare aniga ku furi maayo طلاق iyo furiinna uu san ula jeedin ninkaasi gabadha kama furna maxaa yeelay lafdiguna sariix ma aha نية أهانا هدوسا أولى جيدين طلاق نغن ميس والله أعلم